مسؤولين شركة بلعسن جاردن وكشغيصة دراينتها قريها iyo goobaha ganacsiga ayaa bogaadiyay golaha deegaanka ee cusub ee caasimadda Hargeysa waxaanay soo bandhigeen qorshayaal ay ku bilcinayaan isla markaana kala shaqeynayaan maamulka cusub ee golaha deegaanka mid ka mid ah mas'uuliyiinta oo fariin diray waxa uu yiri waxa aan hadii ilaahay idmo aan rabnaan doonaynaa inaan la shaqeyno maayirka iyo xigeenka iyo golaha deegaanka cusub ee ku baaqay magaalada cagaaran in laga sameeyo marka haddaan nahay shirkadda la Bilcsan Garden waxaan ugu ballan qaadnaa insha Allah inaan la shaqeyn doono oo si fiican oo qurux badan kula shaqeyn doono insha Allah oo nu garab qaban doono wixii caawimeen ku caawin karnana aan ku caawin doono insha Allah waxaan u soo jeedinayaa maayirka iyo xigeenka golaha deegaanka in horta ay ka fikiraan sidii ay riyaha iyo dhagaxaanta uga ururin lahayn magaalada marka hadii ilaahay ma shirkadda Bilcsan Garden waxay ballan qaadaysaa inay garab qabato oo hormood aanu ahay Faysal Jaamac hadaan ahay aanu ahay hormood shirkadda oo madax u ahay marka waxaan rajaynaynaa insha Allah inaanu magaalada cagaaran aanu la garab gari doono insha Allah taasan rajaynaa insha Allah Bilcsan Garden meelo badan bay ka soo shaqeysay oo wadanka wasaaradaha oo dhan iyada qurxisay haday madaxtooyada tahay haday arrimaha gudaha tahay haday arrimaha dibadda tahay haday barisanka madaxweynaha ee hore madaxweyne Siiraanya tahay waxaasoo dhan iyada qabatay oo ka shaqeysay beeraha oo ay kale wax soo saarka oo ku dadaalno insha Allah inay dadku sameeyaan wax soo saar la soo baxaan oo tabaandhada la soo baxaan oo qudradda la soo baxaan oo iyadana ku garab taagan ku guubaabino insha Allah oo noo hayno dad badan ka caawin doono wixii fikrad iyo wixii tusaale ah marka waxaan ku dhiirinaa insha Allah in aan hadii aan dalka wax soo saar laga sameeyo